dhegeystayaal ku soo dhawaada Goob Media. Qodobada warkeennana waxaa ka mid ah: waa kuma hogaamiyaha adduunka ugu khatarta badan ee caalamka oo dhan indhaha ku haya, iyo qodobo kale oo xiiso leh. Dhegeystayaal kala socda Goob Media. Wadamada reer galbeedku waxay u yaqaanaan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ninka ugu khatarta badan ee dunida ku nool, waxaana ay ka qabaan cabsidii ugu weynayd. Waxayna isku dayeen in fara badan reer galbeedku inay wiiqaan awoodiisa, hase ahaatee taas way suurtoobi weyday. Waxaa sidaa iyana qaba oo kaloo aaminsan dadka Kuuriyada Waqooyi ku nool oo uu ku soo rogay dhaqamo kala duwan oo uu isagu aaminsan yahay, wuxuuna uu ka manaacay dhammaan waxyaabaha ay ku dhaqmaan reer galbeedku, sida in jeeniska la xidho dharka jeeniska, sida in la cabo sharaabka Coca-Colaha, in filimaanta la daawado reer galbeedka, iyo ciddii kale ee cadow ku ah. Qofkii taas samayn waayana waxaa lagu sameeyaa ciqaab, waana la deldelaa, oo wuxuu ku soo rogaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi deldelaad. Ninkan da'da yar ee halista badan waxa uu yahay nin adduunka ugu adag, waana manaxaan. Ciqaabaha uu ku soo rogo dadka Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mid ah in maalin kasta la deldelo qof kasta oo laga shakiyo, iyo qof kastoo daawada filimaanta reer galbeedka, taasoo ay dhalisay in qofkii baxsan karaa ee Kuuriyada Waqooyi uu baxsado, kii kalena aanu samayn wax dhaqdhaqaaqa cabsi darteed, amaba aanu ku dhaqaaqin waxyaabaha uu ka mamnuucay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Jong-un. Hogaamiyahan waxaa kaloo uu ku soo rogay dalkiisa haddii balaba YouTube-ka uu qofku furo oo uu filim reer galbeeda fiirsado, waa la fahmayaa oo waa la ogaanayaa, waxaana lagala socdaa YouTube-ka, iyo meel kasta uu eego qof kasta waa lala socdaa waxa uu furayo ama daawanayo. Marka qofku markuu saa u furo filim ka soo horbaxay ama uu akhbaar ka soo horbaxday, markaba waa la ogaa, waxaana loogaga dhigayaa kiis, maxaad u furtay ama maxaad u eegtay, taasoo ku ah dadka Kuuriyada Waqooyi shacabka ku dhacan ciqaabtii ugu weyneyd inay haysato. Waana la deldelayaa qofkii view gareeya ama eegaba sidaa u furaba, hadduu furo ama filin ama akhbaar ama waxyaabo kale oo dalka ka mamnuuca, hadduu saa u furo waa deldelaad baa ku waajibtay, meel fagaara ah ama toogasho. Waxyaabaha kale ee ka jira Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mid ah in qof kasta oo ka mid ah dalka Kuuriyada Waqooyi inuu u jarto sida madaxweynahooda hogaamiyahoodan Kim Jong-un oo ay u xirtaan ragga oo dhan, dumarkuna inay u jartaan sida ay walaashii u jarato timaha ama u xidhato. Haddii aanay taas samayna waxay la kulmayaan ciqaab dil ah, taasoo noqotay in qof kasta uu dhaqmo sida labadan qof ay u dhaqmaan, amaradooda iyo mabaadidoodana la qaato, haddii kale naftooda ayaa halis gelaysa. Waana dalka adduunka uguna xidhxidhan, uguna adag, uguna halista badan, waana jeel hawada ka furan, wax kala iyo wax ka soo baxatoona ma jirto, cid u war haysa adduunka oo akhbaar ka soo tebin kartaana ma jirto. Waana meel adduunka oo dhan yaaban yahay sida ugu dhaqmayo. Ninkanoo noqday manaxaan aan marnaba jixin kana soo dhaqaaqin go'aamadiisa khatarta badan, waxaana hadda uu ka aaminsan yahay dalka oo dhan gabadha walaashiisa ee haysa khasnadaha ama furayaasha nuclear.